waxaan hadda bal idinka warramayaa arrintii koofil siday u dhacday dagaalkii ruuga iyo koofil arrintiisa siday u dhacday waa qiso dheer arrintu waxay ku timi markaa daraawiisha xoogaa nabad heshay oo iska ladan tahay oo dhulka aada moodo inuu qaboobay waxay sameeyeen xiriir dibadeed 3 warqadood baa sayidku diray warqad wuxuu u diray ina raas makaayil ninkii boqorka ahaa ee maaragtay milig abtiga u ahaa muslimka ahaa milig dhaxlay iyaasa oo ahaa adari fadhiya waxaan u sii dhiibay 3 fardo ah oo fardihii nugaaleeda raggii fardaha kaxeeyay iyo meeshii ugu geeyeen iyo wixii markii dambe ku soo yiri waxaan u malaynayaa buuggaad hayso way ku qoran tahay kolka farduhu hadiyad bay ahayd kolka raggii waad la kulantay qaar baad la kulantay raggii la kulmay baan la kulmay warqadna wuxuu u diray qoladii turkiga oo laxaj ninkii joogay magaalada cadmeed dusheeda kore ciidamo markaa ku haysta ee turkiga warqadna wuxuu u diray boqorkii majeerteen boqor Cusmaan warqadahaasoo dhammi waxay ahaayeen in maaragtay la iskaashado oo cadowga meel looga soo wada jeensado oo gaaladan dhulkii ku soo xadgudbaysa la iska celiyo marka in raas makaahil oo ahaa Ilyaasu wuxuu soo diray 40 rati oo dhar iyo xariir iyo rasaas iyo dab iyo hadii waxay sidaan in aan la qiyaasi karin rag buu ku soo daray awrtii wax la soo wada wax la keenay qalqalooc meesha la yiraahdo oo dhulka kan shiiraabo ayaa la keenay waxa joogay halkaas ceelgaab khaliif sheekh Cabdillah oo sayidka walaalkiisa ayaa halka xarun isaguna ku haystay xarun weyn amraagooda marka halkaas uu jooga awrtii markii la keenay waa laga gudoomay nimankii waday iyo raggoodii iyo fardoodii waa la celiyay wax la nabadgeliyo dabad muddo markii awrtii halka joogtay waa la soo raray wax kalena waa lagu soo daray waxa loo dhigay waxay jaha soo saareen taleex hadii aw sida u dheeraynaysa maaha oo maalintii baad hal miqaad ay soconayaan awrtii waxay socotaa meel dhexe markay marayeen niman xagga ka soo raacay oo ogaadeena oo ku socday berbera ayaa xagga iyo markay tageen qola meel la yiraahdo qalqalooc fadhida oo farda haysata oo ciidamadii Ingiriiska kamid ah ayaa oo nin ilka casil oran jiray oo madaxu yahay ayaa loo sheegay wax la awrtaas oo hadii waxay sidoo lala yaabay ayaa halka maraysa fardahood bay soo fuuleen awrtii horgooyeen waa horqabatay awrtii waxay sidii bay dhaceen sayidkana inta wala la socodsiinaya waa ka warqabay awrtan in xagga laga soo diray xarun ay ku socoto waa ogyihiin xaruntii waa laga ogyahay waana la sugaayay adigu farday watay oo niman baa ka fakaday taleex bay tageen isaas dhacday bay yiraahdeen xoolihii waa la dhacay waa maalinta la leeyahay maalinta ka hor sayidku rag buu diri jiray maalinta hubka isaga gacantiisa ku qaybshay adigu 4 madax oo ciidan ay ballankii Ingiriiska u yeelna inuu Ingiriis ballan furay oo gaal ku ballanqatay ayaa u muuqatay 4tii madax waa la habeeyay waa la isku dubariyay waa dhaqaaqeen waxay u dhilsi maraanba hadii aaga burco hadii gaalkii arki maayaane waxay u dhacaan waa raaciyadiisi dadka raaciyada u ahoo isaga taabacsan ayay dhacayeen weerar bay ku qaadeen aroori meesha la yiraahdo kor bay farduhu ka mareen wax alla waxay dhulka ka heleen hadii saaq ahaayeen hadii ogaadeen ahaayeen hadii dhulbaanta ahaayeen oo dhan ay xoolihiisu soo duween koofilna markaa meel adigu sheekh iyo maaqan meelaha buu joogaa xoogaa ciidan oo aan badnayn oo 300 meelaha ka yarna uu haystaa iyo awr rukuuba oo hindiya laga keenay awrtii dheerayn jirtay belad ahayd adigu qaladhaantii hadday u tagtay malaha waa soo gurmaday koofil meeshaasuu ku dhintay sheekada ninkii la socday
markaan ka waraystay goobjooga ka ahaa wuxuu yidhi galabtii ayaanu beer ka soo gudubnay buuri maqribkii amar la bixiyey waxa la yidhi xoolaha hala joojiyey caawa guure geli mayno halkaasaa xoolihii habeenkii lagu gabagaba dhigay ina dulmadoobe subaxdii alla iman doonay waa beer dusheed gees walba dambaanu kaga shidnay buuri koofilna galabtii buuna dhaafay buu yidhi isagoo ciidankiisii wata iyo nimankii xoolaha laga soo dhacay oo iyaguna soo gurmaday hor bay naga mareen oo waana hor fadhiisteen oo waxay doonayaan inay subaxdii hor qabatayaan dhowr gaaloo kaleetana waa la socdeen 3 baan u malaynaya qolada militariga maxaa yeele buuggan maamulka Soomaaliland waxaa ku qoran koofil wuxuu yidhi 4 gees baynu u dagaalamaynaa ninkii militariga ahaa wuxuu yidhi maanta oo kaleeto nimankan Soomaalida ma yaqaanin waxaas 4 geeskaaye dherer aan u dagaalano dherer aan u dagaalano adigu xoogaa sheekooyin badan bay halkaa ka bixiyaan aroortii ayaa la soo kiciyey xoolihii la soo dhacay ragguna waa 4 madaxii u horreeyey afartii madax ka mid ah ayaa la yidhi dawacada meesha ka kiciya dawacooyinka area raggaasaa loo diray hadalkooda waa caynkaas iyagoo aan gabanayn ayaa ciidankii hore dagaal ku qaaday waxba ka tari waa rag badan baa meeshii lagu laayay ciidankii labaad baa galay ciidanka labaad ayaa jabiyay 2 ciidanna waa nabad galeen oo dagaalka ma gelin 2 meesha ku dhacday marka xoolihii iyo wixii la waday waxay uun sii socdaan baxarun baa la geeyey waa la iswaraysanaya malaa warkuna waaba ka horreeyey intay dhexda sii socdeen baa xaruntii la geeyey bal hadda Ismaaciil Mire oo ciidamadaas 4 ah midkood madax ka ahaa markii uu xaruntii tagay koofil gacantiisii midig oo geedka soonaha la mariyay qurmin soonaha la mariyay oo faraskiisu oo qorta ugu xirana sayidkii baa la hor dhigay taleex markaas sayidku ku yiri Ismaaciilow bal noo waran war bixintii uu bixiyay bal hadda idaa jaa hayno mariyo intuna idaa jaa u gelin kaas waxaa jirtay sheeko odhanaysa nin ina weysa xumo la yiraahdo gobataal noqoye girligaanku ka joogsay oo buuxa ka damiye buga ha gaarin adiga tolkay gaajadaas maray nimankii kubriga gaajada u qabay ku googooste nimankii kubriga gaajada u qabay marka gabagaas sidoo ninkaas u mariyay ayaa dagaalka u dhacay sidii baana loo dilay girligaanku ka joogsay oo buuxa ka damiye girligaanku ka joogsay oo buuxa ka damiye ku googooste nimankii kubriga gaajada u qabay kaas uu la helay buugana ha gaarin adiga tolkay gaajada hortiina waa la dilay buuga hortiina waa la dilay girligaankiina uu dhici waayo oo ka joogsado waa la dilay والله وهي شكاس وشكعان وشكعان واد ما تنتهي إنه وسحمه وحاد يقين الله نحرسها حاجة أنا خلو مركب وحي اللي بلنا إن أيه سي كلة الدون هي يجرب كوها لدني لدني هذا إذا جاء عمر قبقي إسماعيل مري قبقي وربحنتها هاي كودي وقتها إسماعيل مري واحد هذا ما وسمينا وحي سمعوا سمين تفتي مركي ديار أي قصو خاصة ninka gabayaaga ah waxa markii goob ay dhacdo goobtaas ninka Soomaaliga ah oo gabayaaga ah waxa caado u ahayd inuu tilmaamo wixii ka dhacay khaasatan hadii uu ku guuleysto xataa hadii uusan ku guuleysan oo qoladiisu ku guuleysan wuxuu iska dhigi jiray inuu ku guuleystay nin Soomaaliga waa waayay yiraahdaa goob hebel waa ku jabna oo ma dhacdo inta badan محمد عبد الحسن وشيء لكن واحد كان له مقدمته دغاق هو حجاميه جود بو marka Ismaaciil Mire wuxuu tilmaamay dagaalkii sidii uu u dhacay waa ninka kaliya oo goobta ruuga ka gabiyay sidaan mar hore sheegayna waa ninka kaliya oo gabagiisu u fasaxnaa wuxuu aad uga hadlay marka dagaalkii intaan la gelin tabaabushiisa oo sayidku uu hubkii iyo qorihii iyo rasaastii iyo wareegadii iyo wixii u dhameeyay wuxuu sheegay si socodkooda halka ay ku hakadeen iyo wixii ay meeshii ay seexdeen isagu doorkii uu ku lahaa ayuu sheegay oo ninka gabayaaga xagga isaga toosinayo oo aroortii dhaxanta ka qaaday marka la kacayo dagaalkii sidii loo galay ayuu sheegay wuxuu sheegayaa wixii ay ka heleen meesha oo iyagu geel ah
wuxuu sheegayaa raggii ay laayeen iyo gaaladii wixii laga dilay wuxuu sheegayaa hashi gabay sidii uu qaatay iyo geeli markii soo noqodkii la qaybsaday inta uu ka helay isagu wuxuu ugu dambaysiinayaa oo dee abbaanduulo kasta lagu yaqaan oo soomaali oo dagaal galay faraskii uu maantaa ku joogay inuu tilmaamo ismaaciil mire wuxuu lahaa intuu sheegay 5 faras ayaa gacantiisa ku raagay intii uu daraawiishta ahaa ina qooqan mid la yidhaahdo genyadii lagu magacaabo dhashay looshane oo ah kii faadimo iyo falaadkeega uu ku joogay maantaas qaabil mid la yidhaahdo dhadaw caalimeed mid la yidhaahdo iyo maanta koofile dilaya kii uu ku joogo tuure maaha waa tuur ayuu ku sheegaya oo gabaga ku khatimayo oo uu amaanayo dee waxaad moodaa inuu abaalgud u siinayo intaas nin walba oo gabayaana saasuu samayn jiray ammaanduulaha ismaaciil marka gabaygiisii warbixinta ahaa wuxuu yidhi annagoo taleexnaal dee sayidka hortiisuna ka tilinaya sahal maaha annagoo taleexnaal jahaa taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora sayidkeenu tii uuna yidhi tora ku heensaynay shakadaa intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ha tabantaabiye ducada noo tuumi wareegada rag baa waxay tawaliyaan wax kaa tegine annana tawlka qaalmaha nin iyo tulud u soo saaray sibraar caanagee loo tabacday tarax ku sii maalay tiirkii rasuulka iyo sharciga toog ku wada fuulay galabtaa taxaabi iyo kadlaba toobiyaha raacna habeenkii fardaha wuu turaya taa ku sii miran tubiciida lagu qoofaliyow xamashka loo taabay talaaduhu markii ay dhaceen talalay oo reemay tixda gabay markii aan akhriyay toosan niman jiifay tiraabkaygu meeshuu ka baxay la isku soo tuumi salaadii markii aan tukaday yaalka kaga taagnay toga ula sameey dooyadii hore u tuuriyeynay intay timacad noo soo arkeen marada noo taagay annaguna jahaad kama tagnee tiinbad ugu rooray sangayaal tabaaday iyo gool weerarka u tooxnay tiiraan iyo ololkii dhulkii taani naga qaaday tolaalayda qaylada berbera tahan la weylaari taanbuuglayaashii iyo kuway tabaysay soo gaareen saysaha gugi oo hanqaragtay nigtii yeedhay talaxumada awrku u xiray baqa taraarsiinay birlagaanka meeshuu turqaday lagu tunsii geela tirsan maayo unkii tirmiyo turishle ii doore gaaladu waxay tacab lahayd taabnay garabtaasi oo muxuu helay maadhiin turaabkaa ka badan tuurta kaga qaadnay tukihii intaan niman u waray 10 la soo qaatay gabagaba u tooxan oo kufriga maara kaga teednay tafwareeman maynine intaan tubay ku aanshaaday garabta oo soo noqday marka inta xarunta iyo intii dagaalka u dhaxaysa habeenba meesha ay joogeen buu sheegaya marka tafwareeman maynine intaan tubay ku aanshaaday garabta caraabada ku timi turuga buuhoodle habeenkaa ninkii tabar lahaa talanta reegaarka habeen kale taxaashay nugaal godan u tuuriyeen habeen kalena tuuraha caduurtoorin kaga maalay habeen kale tagaabeeye iyo tuini haylaawe habeen kale dariiqada tubnoo toosan lagu qaybsay 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unungooyo iyo 10 tiftii hore rimo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer toolan oo tixanka qaalmooda iyo 10 irmaano aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay 10 tahee joogto been laguma tooqiyo afaan taabud noqonayna intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tanaaday geeri uu keenay way faraskii muxuu ku yiri warka tuura waa laga hayaa tan iyo iimay taltalaabsigiisii iyo kabti waa xamata rara oo misana taab ku sii daray taltalaabsigiisii iyo kabtiga tabakarow dheere anigana tisbay galay intaan col ugu taagnaayay tuludna uma gudlaan seeruhu tawlka saan yaray tafantoofka gaalku u dilay waa tixgeliyaa suldaankuuna loo tabi inuu tuuladii gubay timaso hanlow ee bahay kuma tabaalay u duceeyay faraskiisii ku dambeysay